السلام عليكم. كنت وعنا ونحسن ملك الدنيا كجوتان سو هذا وقف wax ka hadlayna dawada loo yaqaano dhulka laga sameeyo sidoo kale buska day dawada waxa loo isticmaalaa calool fadhiga ama calool istaaga qofka haduu leeyahay waxa loo yaqaan calool fadhiga ama calool istaag marka xaaladda noocaas lagu daweeyo si kastaba ahaatee dawadan waxa kamid tahay groupka loo yaqaano stimulant laxatives oo in marka ay jilciso saxaradii si marka qofka ay soo dhaafto dhinaca kalena waxa la yiraahdaa waxa loo yaqaan constipation ama calool fadhigo ma cudurba maaha cudur bas waxa lagu qeexay inuu yahay calaamad cudur marka uu yeelan karo si kastaba ahaatee dawadan looma ogola in la siiyo qof kale calaamadahan soo socda haddii qofku leeyahay waxa loo yaqaano xasaasiyad ama allergy ku leeyahay dawadan lama siin karo waxa kale oo la siin karin qofka marka uu dhiig ka imanayo gaar ahaan qaybta dambe ee marka dabada waxa kale oo dawadan la siin karin dadka marka iyagu galay qaliimada kuwaas oo laga sameeyay xubnaha marka uu wada ama sidoo kale oga taasoo marka keeni karta inay dhibaato ay horseedo waxa kale oo dawadan aan la siin karin hadduu qofku leeyahay waxa loo yaqaano appendixka ama qabsinka taasoo marka xaaladda qofka uga sii dari karta haddaba dawadan sida uu shaqeysaa dawadan waxay shaqeysaa inay kaga shaqeyso murqaha marka mindhicirada si markaas saxaradii jirka dawada looga saaro taas oo ka dhigan in qofka ay ka caawiso inuu xaaladda noocaas ah oo kaga baxo waxaana loo isticmaalaa muddo waqti kooban si marka qofka xaaladda noocaas ah looga daweeyo tan kula dambe nabadgelyo.